السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada kanaalkeena kooxda macluumaadka. mar kale insha allah maanta waxaynu eegi doonaa cashar ku saabsan folder lookarada iyo kan ugu wanaagsan oo aan jeclahay intii garashadeeda ah inuu yahay kan aan maanta idin sido iyo habka aad u isticmaali lahayd iyo faa'iidadooda oo dee qof walba aan filayo inuu toos u garanayo folder lookarku wuxuu taro ifan qofkii u baahan faa'iidadiisa loo sheegi maayo saan jeclahay. yacni maanta barnaamijkaan idin sido waa kan sidaad u jeedaan ama softwarekaan idin sido waxaa loo yaqaanaa Amphi folder locker. kuleyntii aniga ogaalkayga ah ama garashadeeda ah Amphi folder locker waa midka ugu wanaagsan folder lockerada. run ahaanta aniguna waan isticmaalaa, yacni hadda muddo ayaan isticmaalay, waana kan ugu wanaagsan. waana arki doontaan badde yacni idinka lafteenu inuu yahay kan ugu wanaagsan. feature badan oo gaar leeyahay oo aanan ku arag dhowr software oo hore oo shaqadan iyaguna ku qabanaya. bal aynu applicationka hore u galno. markaan applicationka soo furno wax u horeeyo inuu weydiinayo yacni waa inaynu password gelino. yacni password ban gelina waxaan gelinaa kooxda macluumaadka aan passwordkeena khariganaa waan ku celinaa. hadda waxaan gelinay yacni kooxda macluumaadka ayaan passwordkeena gelinay. marka inaga hadda waa tijaabo uun. halkan yacni kama warwareysid inaad emailkan waxaan leeyahay inaad passwordkan ilowdo. wuxuu ku hayaa muxuu ahaa email buu ku odhanaya geli. emailkan ayuu kugu dirayaa haddii aad garan weydo passwordkaaga marka dhowr jeer ku eegto emailkaaga ayuu kugu diraya. maqaamaha waxaad yacni passwordkiisa dad ilowdo laga quusa. hadda halkan waxaan gelinaynaa passwordka ay leedahay kooxda macluumaad emailka kooxda macluumaadka. waxaan gelinaynaa macluumaad technology at soo jeedaan. hadda halkan aynu gelinay emailkeena aynu okay nidhaahno. hadda soo jeedaan gudihii ayuu keenay softwareka. halkan weyaan halka aan doonayo inaan keeno ashyaadaan doonayo inaan xidho. hadda haddaan halkan durbino yacni halkan waxaa yaala foldero. labadan folder ayaan doonayo inaan ku jaabiyo. kan my phone ayaa ku qoran. waxay yaala yacni meel halkan oo muus yaalo iyo sidoo kale halkan oo casharo yaalaan soo jeedaan iyo halkan kale oo books yacni pdf oo aan akhrista yaalaan. markaynu halkan ka nimaadno aynu haddaba bal isku dayno inaynu folderka ilaa labaadna waa kan soo jeedaan catalog ay noogu qoran dhowr ka sawir ay noogu jira. laba folder aynu doonaynaa inaynu tijaabino oo bal aynu xidhno. waxaanu dooranaa halkan yacni add files waxyaalaha aynu doonayna inaynu xidhno aynu soo qaadinaa. desktopka ayaan dooranaa. dabcan labadan folder bay soo qaad. labadaa folder ayaan doonayna inaan xidhno. labadaba soo geli. soo jeedaan labadii folder halkan uu keenay. yacni labadii folder baa kuwan. haddaba halkan ayuu featuradiisa duwan. waa halkan waxaa ujeedaa inuu igu qoray hide unlock. yacni halkan labadii folder kama muuqdaan inuu yaalay hide unlock. waxaan dooranaya uma baahna hide unlock. yacni adigu haddii aad u baahan tahay hide unlock waad dooran kartaa. sidoo kale wuxuu leeyahay hide only keliyaad. yacni password ku xidhi maayo laakiin keliyaad uu ku hide garaynaya. sidoo kale wuxuu leeyahay only keliyaad lock inuu yacni lock ku xidho. lowgaas oo ah kan hadda aynu kusoo gelaynay isaga ee ah kooxda macluumaadka. sidoo kale wuxuu leeyahay keliyaata read only ka dhig oo yacni delete iyo wax noocaasa lagu sameyn iyo waxna laga qaadin waxna yacni copy and paste oo kale ayaanu yeelin. hide unlock tan hadda inoo saaran iyo password. hadda haddaan password dooto wuxuu odhanayaa ma mid cusub ayaad ku xidhan mise kaagii hore. yacni folderada lookalada kale yacni noocan kumayna arag. iminka haddii aan u baahday inaan password kalaan ku xidhayaaba mid cusub iyo ku xidhbaan lahay. yacni kii hore kooxda macluumaadka soomaaha kan waxaan ka dhigayaa ABC 1 2 3
a b c 1 2 3 ayaan ka dhigayaa. halkana password hinti ayuu leeyahay ku sameyso, yani markaa k ayaan ku qorina okay ayaan odhanaa. saa ujeedaan imika waxaan ku jaabinay kan ay ku qoran tahay catalog, bal aynu eegno. yani catalog markaan soo galno waa kan, yani aynu isku dayno inaynu kaga furno yani passwordka inuu ku xidhan softwareka ee ahaa yani kooxda macluumaadka. aynu gelino kooxda macluumaadka, maaragtaan uu diidayaa k hintigiina way tusayaa, uuna yani wuxuu leeyahay kan maaha kan hadda passwordka, laakiin se waa kan aynu yani softwareka kusoo galnay, isaga mid kale ayaynu ku xidhnay. haddaynu eegno a b c 1 2 3 wuu kaga furmaya. okay saa ujeedaan yani folderkii gudihiisa buu geenaya. run ahaantii softwarekan waa intii ogaalkayga kan ugu wanaagsan, yani xitaa softwarada kale kuma aragno intan oo option, isaga wuxuu leeyahay read only, ma arag anigu ilaa hadda inta ogaalkayga ah software kale oo yani wata optionkaas. only optionada ay wataan keliyata softwarada kale waa keliyata hide and lock, xitaa ma wataan lock keliyata, mostly hide and lock ayuun bay wataan. mana lahan wax buuxsana oo inta software ayaa doonto aad halkan yani kusoo daraysaa, wax maaha yani haddii toban qaanadood 100 shay ayaad kusoo dari karaysaa, in aad ku samayn karaysaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa google halkan. sidoo kale waan ka ilaaway, ma lahan wax license ah, waa software free ah, kuma weydiinayo license iyo waxyaalaha noocaasa, waa free. sida software kale aan ku aragnay isagu maaha wax license iyo wax noocaas weydiimayo. waana kule run ahaantii software aada u wanaagsan. casharkeena maantuna intan ayuu ku egyahay, intan casharkan ku xiga ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.